sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waliba danjiraha Norway ee Soomaaliya. maanta waxaa xarunta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya nagu soo booqday danjiraha Norway dalka Norway u fadhiya Soomaaliya oo kulan ama ballan la lahaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankaasi wuxuu ahaa kulan iswaraysi ah oo gudoomiyaha iyo safiirku ay isla wadaageen horumarka jira caqabadaha jira iyo dhammaan wixii marka wadankan dan u ah oo ay ka caawin karaan safaaradda inay wadanka kala shaqeeyaan kulankuna wuxuu diiradda saarayay in dawladda Norway ay ka qayb qaadato in wada hadalka siyaasadeed iyo arrimaha bandinka ah in xal loo helo sida constitutionka dhameystirkiisa iyo arrimaha kale la midka ah marka kulan wanaagsan buu ahaa si wanaagsan buu ku soo dhamaaday waana gudoomiyuhu ugu dambeyn uga mahad celiyay booqashada ay ku yimaadeen aqalka isagoo mar labaad ugu celiyay in Soomaaliya ay marxalad fiican ay joogto una baahan tahay inay hor u socoto international community-gana ay tahay inay ku garab istaagaan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxa uu ka warbixiyay kulan lagu soo bandhigay guulaha ay gaartay wasaaradda cadaaladda sanadihii ugu dambeeyay waxa uuna ka warbixiyay mar uu warbaahinta la hadlayay waxyaabaha ay wasaaradda ay ku guuleysatay ama garsoorka ama cadaaladda loogu guuleystay بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ka qayb galay laba shiro isxigay labadaas oo looga hadlayay horumarka ay gaareen bahda cadaaladda isku duuban ay ku jiraan bahda cadaaladda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada taas oo ka soo qayb galeen wasiirada dawlad goboleedyada qaarkooda iyo agaasimayaasha wasaaradaha cadaaladda dawlad goboleedyada iyo deeqbixiyaasha iyo dad badan oo daneeyo waxaa laga hadlay maadaama sanadkii hore uu dhamaaday waxyaabaha guulaha la gaaray ayaa laga hadlay waxaa kale laga hadlay horumarka laga gaaray xagga diyaarinta bahda cadaaladda sidii loo heli lahaa cadaalad hufan dalka dhan ayadoo la fiiriyay maxkamadaha wasaaradaha iyo nidaamka loo yaqaano xalinta khilaafaadka dadban waxaa kale meesha la soo dhigay qiimeyn lagu sameeyay barnaamijkan oo bahda cadaaladda lagu caawinayay sanadkii soo dhaafay haddana waxaa laga hadlay sidii loo kordhin lahaa barnaamijyada lagu caawinayo bahda cadaaladda ha ahaato madda federaalka iyo madda dawlad goboleedyada labada shir mid wuxuu ahaa mid oo dadka ka soo qayb galay ay ahaayeen dad safaaradaha ka socdo iyo UN-ta ka socda dadkii ugu soo sareeyo qaybtaas oo hirgelinta qaabilsana qaybta horena shirku wuxuu ahaa iswaraysi waxyaabihii guulihii laga gaaray dawlad goboleed kasta waxay soo bandhigtay shaqooyinka fiican shaqadii ay qabteen sanadkii la soo dhaafay haddana waxaa lagu heshiiyey in loo diyaar garoobo 2021ka iyo barnaamijka si u socon lahaa waxaa lagu heshiiyey kulamo kale inay dhici doonaan barnaamijyada oo xagga horumarinta bahda cadaaladda qaybta maxkamadaha iyo wasaaradaha iyo qaybta maaragtay xabsiyada ayaa laga hadlay barnaamijkan wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah wafdigii noo imaaday aan shirka la galneen horumarka laga gaaray aad iyo aad ay ugu farxeen waan mahadsantahay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo kulan ku yeeshay isla markaana kulankaasi dhalinyarada ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyeen sharciga doorashooyinka oo dhawaan oo saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhalinyaradaasi ayaa waxa ay ka hadleen sida sharcigaasi u malmariyay madaxweynaha waqtigani ay ku haban ay uga mahad celiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya
saxiixa sharcigaasi ciday waxa weeyaan iyagu ku kalsoon yihiin inuu u fulin karo ay ka soo shaqeeyay laakiin aan waxaan rabaa inaan ka fiiriyo laba meel dhanka muhiimadda uu leeyahay guud ahaan dalkan oo muddo 50 sano ah aan doorasho ka dhicin iyo muhiimadda gaar ahaan oo noo leeyahay annaga haddaan aan dhalinyaro waayo waa inta hawlkan ku jirto oo mas'uuliyiinta iyo dadka qabiilayaasha waa wada dhalinyaro haddii aan ku hormaro xagga muhiimadda uu leeyahay dalkan 50 sano meesha ka dhicin doorasho qof iyo cod ah mana jirin in shacabka ay soo saartaan ama ay soo xushaan hogaamiyaha dalka iyo dadka mas'uuliyiinta kala sida xildhibaanada laakiin haddeertaan maadaama sharcigan la ansixiyay marka koowaad waxaa niyadeena soo galaysa in dalkan annaga haddaan aan dhalinyaro ama shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba markaas ku qabto in aan soo saaran karno ama dalkan dad anaga ku qanacsanahay hogaamin karaan haddii aan laakiin aan nala rajada xun oo dadka sida wax u fasiro kaleeto oo la dhaho dalkan doorasho kama dhici karto iyo sharciga ma shaqeyn karo haddii annaga aamino waxaan dib u dhigaynaa rajadii dalkan laga lahaa iyo inay dalka u lahaado dad annaga naga yimaado xagga markaan u fiirsho arrimaha dhalinyarada aan jeclahay inaan xooga aan saaro midda koowaad dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa in ka badan boqolkiiba inay yihiin 75 laakiin aad ay u yar yihiin matalaadda xagga siyaasadda walow 2016 doorashadii dadbaneed aan ognahay in musuqmaasuq badan oo hareeyay dhalinyaro yar oo si nasiib ah ama waqtiga iyo xaaladda markaas jirtay ilaahay mahadiis ku soo gudbay ay nagu matalaan siyaasadda dalka markii taas laga soo gudbo doorashada qof iyo cod oo sharciga hadirtaan la ansixiyay oo sii doono waa annaga boqolkiiba 75 ku lahaan matalaadda guud ee dalka markaan waxaan isleeyahay markii loo fiiriyo sida guud dalka oo dhan wuxuu yahay muhiim gaar ahaan dhalinyarada ayuu muhiim u yahay waana rajaynayaa insha Allah sida qorshaha uu yahay ayadoo caqabado badan jiraan oo xagga amniga iyo sida xildhibaanka uu ka dhawaajiyay arintii Somaliland iyo waxay matalaadii gobolka Banaadir iyo resource-ga dhaqaalaha ku bixi kara doorashooyinka oo weli miisaaniyadeeda aan dabcan aan la cadeynin iyo arinta kale muhiimka oo ah in aan weli aan la dhameystirin waxyaabihii fududeyn lahaa sharcigan oo kamid yahay in xisbiyada iyo meel gaarka ay ka baxaan in dalka diiwaangelin ay ka dhacdo iyo in la helo maxkamad dastuuriga oo sharcigan in loo gudbi karo doorashada saxda ah oo kaabil lahayd laakiin waxaan rajaynaynaa haddii duruufahaas jiro oo sharciga garab yaalo haddii laga gaari karin xitaa waxaan rajaynaynaa insha Allah in doorashooyinkii aan soo aragna doorasho aan ahayn oo xarumo laga asteeyay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo meelaha la gaari karo dhan inay ka dhacdo doorashadaas si aan u helno fursad ka badan fursadda aan maanta aan haysano iyo matalaad aan ku leenahay siyaasadda haddana dhalinyarada Soomaaliyeed dadka guud shacabka guud iyo qarankan oo helo matalaadii saxda ah iyo dadkii hogaamiye lahaa oo sida saxda ku yimaado xisbigii dhalinyaro tiro badan horboodaysa waa xisbiga awood ugu badan oo lahaa karo doorashada laana aqoontii asay ku jirtaa dhalinyarada ku jirtaa xoogii dhalinyarada ku jirtaa wax ka bedel am hindisaad ama baahida shacabka dhalinyarada dalka yaqaana marka tirada ugu badanna ee dalka ay ka haysta intaas markii la isku daro waxay siinay awood xisbiga ay ka tirsan yihiin inay hor fadhistaan kala xaajoodaan arinta ku saabsan musharaxiinta doorashada qayb gal lahaayeen in ay qayb ka siiyaan doorashada in musharax dhalinyaro la soo tartamiyo sida uu qayb galo doorashada laano xisbiga garab weyn ka leeyihiin xisbiga dhalinyaro tiradiisa ugu badan ah laano waxa uu ka saacidaa in uu ka dhaadhiciyo bulshada ra'yiga iyo aragtida xisbiga uu ku tiirsan yahay hadduu xisbigu dhalinyaro ka mid ahayn ma aha xisbi socon karo doorasho qayb weyn ka gaari karo hadduu galana number yar uu kala ahaan doonaa baarlamaanka halka uu ka leeyahay xisbiyada ugu tirada badan dhalinyarada waa xisbiyada ugu number badnaan doono doorashada dhici doonto marka doorashada iyo baahiyaha dadka iyo baahida loo qabo in la helo codbixiye oo codbixin dhacdo xor iyo xalaal ah waxaa yaqaan baahida dhalinyaradii ku soo kortay intaasoo sano dagaal maanta 30 jir ku noqotay ama maanta 30 jir ku noqotay hooyadiisa iyadoo foolneys xabadaha dhacay gedkoodtiisa ku dhashay ay yaqaan nabadda ee qiimaha ay leedahay dalka iyo xorriyadda in loo baahan yahay shacabka inay ku soo noqdaan awoodooda shacabka waxa ugu tiro badan ee dhalinyarada sharciga doorashooyinka wuxuu dhahaa in ay shacabka dooranayaan marka awoodii dhan waxaa gacanta loogu geliyay
dhalinyarada dalka maanta ininka waayo marka iyo annaka waa waxa qayb ka mid ahaa lahaa doorashooyinka dalka aada u mahadsantihiin wahagaag dhanka kale waa xildhibaan cabdifataax qaasim oo kamid ah dhalinyarada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda si dalka dhalinyaradu ay wax ugu qabtaan ciday waxa weeyaan iyagu ku kalsoon yihiin inuu u fulin karo muxuu ahaa waxa iyaga rabaan aniga waxaan ku tilmaamay dalkan marxaladaha uu soo maray marxalad kastaba amaanteeda iyo ciladeeda ha lahaato duruufta ha qasabto laakiin waxaan ku tilmaamay sida Quraysh ugu dhagneedo oo kale qamrada oo marna Ilaahay uu yiri la taqrabu salaata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun oo booskaas waxa taagneed markii kaaba qabiilku wax soo xulay waxa loo gudbay marxaladii kale oo ah ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما oo ah ergada wax dooranaysa hadda marxaladu waxa la taagan yahay inama al-khamru wal maysir wal ansab wal azlam rijsun oo ah qabyaaladii in laga guuro xisbi loo guuro ayaa hadeer la maraya marxalad kasto marxaladaas kamid ah runtii dhibaatooyinkeeda lahayd waxa la islahaa hoos loo dhigo muxuu ahaa wax la yiraahdo musuqmaasuqa laakiin musuqmaasuqa ayaa sii kordhay doorashada macnaha ay leedahay waxa weeyaan inta halkan inta joogto boqolkiiba 99 waa dhalinyaro ama waa boqolkiiba 100 inta joogto waa dhalinyaro haddana wax xuquuq ay leeyihiin ma lahan waxay marti ka yihiin hogaanka dalka waxay marti ka yihiin dastuurkii dalka waxay marti ka yihiin xuquuqdooda siyaasiga ah marka si aysan marti ugu noqonin iyaga ay u horkacaan waxa lagu qasban yahay marka boqolkiiba 75 haddii la taagnaado ergo modelka noocaas ah ama konton ha noqoto ama 75 ha laga dhigo ama 101 ha laga dhigo ergo waa ergo cidii awood lahaana qaadanaysa oo awood dhaqaale leh awood siyaasadeed leh ayaa markastaba qaadanaysa laakiin markii shacabka loo dago gudaha shacabka ay boqolkiiba 75 waxa way ka yihiin ergada nidaamka ergada markii wax lagu soo dooranayay dhalinyarada waxa la yiri 16 dumar ha laga dhigo 12 dhalinyaro ha laga dhigo la yiri inta kale odayaasha la siiyo laakiin markii la yiraahdo shacabka soo banbaxeen inta aqoonta leh waa dhalinyaro inta u badanna waa haween iyo dhalinyaro marka faa'iidada ay soo noqonayso waxay tahay haddii nidaam xisbi wax lagu dooranayna way adkaanaysaa xisbiga inuu fulin waayo ajendooyinkii laga rabay oo berito shacabkii ayaa sugaayo oo shacab waliba aan la gadan karin waxa kaliya lagu gadan karna ay tahay in horumar uu ka qabto oo ardal waaqع marka waxyaabaha oo ikraan ay sheegtay waxa kamid ah anaga waxaan soo marnay maamul goboleedyada gudigan kamid aha maamul goboleedyada aan soo marnayna waxa weeyaan waxa jirta xigmad dheeysa kullun yuqanni ala laylahu wa layla la tuqirru bidhalik nin walba leeladiisu la haysaya oo ah kullu xisbin bimaladin farixun nin walba aragtida isaga anfacaysa ayuu ka qaatay isagoo ku saleynaya marka siyaasadda oo ah xildhibaana shalay waxa weeyaan soo saartay maanta waa kugu caasi garoobay berita ka aars wax la mid ah laakiin aragti guud oo dal laga ma fiirin sharcigana waxa la yiraahdaa sharciga doorashooyinka heer federaal ayaa la yiraahdaa oo dawladda dhexe bas uu quseeyaa ma quseeyo maamul goboleedyada waana jeclaan lahayn dalka oo dhan inay doorasho ka wada dhacdo dadka lala tashaday waxa kamid aha khubarada kamid aha gudiga madax banaan doorashooyinka qaranka oo muddo ku soo dhex jira kamid aha sida sheegtay hay'adaha waxa kamid aha amniga iyo difaaca kamid aha sharcigan markii hore xukuumaddu waxay ku beesgareysay waxa la yiraahdo BR ama wuxuu ahaa ishaag proportional representation oo close list ah laakiin markii la falanqeeyay kadib xildhibaanadii waxay isla garteen labadii golaba in la bedelo waxaana loo bedelay majoritarian system nooc la yiraahdo oo waxa weeyaan waxay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan BR ka waxa la dooranaya xisbiga ayaa la dooranaya wuxuuna ku saleysnaa qaab single constituency ah oo hal deegaan doorasho dalkii oo dhan ah codadkii la soo wada ururinaya percentage isagoo ah ayaa tiro loo bedelay kadib xildhibaanadii ku soo aada laakiin hadeertaan majoritarian systemka waxa weeyaan xildhibaanka la dooranaya xildhibaankii isagoo xisbi matalayo haddana beel matalayo ayaa la dooranaya nidaamkaas loo bedelay ayadoo markaas aragtida dadka international community ha noqdeen dad kale fara badan ha noqdeen waxay ku taliyeen maadaama dal dagaal ka soo baxay uu leeyahay close listiga u fiican laakiin aragtidii xildhibaanada ayaa waxay noqotay inay u bedelaan majoritarian systemka nidaamkaas aan la qaatay madaxweynahan uu ansixiyay sharcigana waa qabyo waayo waxa ku xiran waxa kamid ah axzaabta ilaa axzaaba tartamaysa axzaabta siyaasadeed sharcigoodii dib u eegis lagu sameeyay baarlamaanku yaala oo bil kadib
waa laga doodayaa waxaa ka mid ah xeer nidaamiyayaal oo guddiga madax bannaan aysan ka bixi karin oo siyaasad taabanayo oo iyaga waxa weeyaan aysan oo ay ugu horeyso wax la yiraahdo deegaameynta kuraasta iyo arintan gobolka banaadir ay ku xiran tahay dastuurkii oo waxa weeye wax laga qabto arinta Soomaaliland oo wada hadal iyo waxyaabaha ku xiran adiga intaas waxa weeye ugu muhiimsan waa maasanta waa hagaag daawadayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka sahanka ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa olole nadaafadeed ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay ka sameeyeen jaamacadda dhexe ummadda ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma Caamir iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka mid yahay gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay ka hadlaan ololahaasi nadaafadeed ee ardaydu ay ka sameeyeen maanta xarunta dhexe ee jaamacadda. bismillaah agaasimaha guud ee nadaafadda ee dawladda hoose ee Xamar gudoomiyaha jaamacadda ummadda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Xamar Weyne dhammaan mas'uuliyiinta jaamacadda ummadda ardayda saxaafadda dhammaantiin waxaa idinku salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdi salaan waxaa sharaf noo ah haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir inaan maanta kala soo qayb galno kambeyn nadaafadeed oo isxilqaan ee ardayda jaamacadda ay ka sameynayaan qaybta Xamar Weyne jaamacadda ummadda qaybta Xamar Weyne Shabeelle ardayda culumta arrimaha bulshada iyo waxbarashada door weyn ay ka qaateen barnaamijkan isxilqaan marka ugu horeysayna ma ahan dhowr jeer oo kale sidaas oo kale ee kambeyn u sameeyeen nadaafad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa ardayda wadanimada ku jirto diyaar u ah inay wax ka bedelaan dalka bilicda iyo horumarka magaalada ka shaqeynayo aadaan ugu mahadcelinaa ardayga waa meesha kaliya lagu barbaariya waxbarashada waa marka uu koraayo wixii loo sheego ama wixii lagu abuuro waa geed markii la abuuro sidaad u waraabisid ayuu u barbaaraa marka ardayga sidaad u jeediin marka xarumaha ay wax ku baranayaan ee ku barbaarayaan wadanimada iyo horumarka iyo waxqabadka iyo xaqqa lagu leeyahay muwaadinka dawladda ay ku leedahay ama dalka uu ku leeyahay iyo midku asaga leeyahay markii loo sheego meeshaasii waxa ka barbaaraya ama ka soo baxayo ummad caafimaad qabta aadaan ugu mahadcelinaa jaamacadda ummadda oo u istaagtay ardayda inay dareensiyaan waajibaadka lagu leeyahay xaqqa lagu leeyahay inay gutaan gudoomiye aadan kaaga mahadcelinaa adiga iyo dhammaan mas'uuliyiintaada ee jaamacadda ummadda oo mar walba wanaaga iyo horumarka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee maamulka gobolka Banaadir ee idin kala dhaxayso annaga haddaan nahay maamulka marka waxaan idinla garab taaganaa wax walba baahi ee ka jira jaamacadda ummadda sidaad arkaysiin jaamacadda ummadda jaamacaddan qaybtan Shabeelle 600 ilaa ka badan arday ayaa ku dhigata si lacag la'aan ah waa waajibkii saarnaa qof kasta muwaadin ama dawladda laga rabay annagana marka waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqeyno wax walba kaabaad ahayn gobolka Banaadir garabkiina ayuu yahay sidaad ogtihiinba hadda waxaan kala soo qayb galnay baabuurtii iyo qalabkii agabkii nadaafadda wixii kale baahi ee jirtan waxaan rajaynaynaa hadda aan gudoomiyaha ka wada hadalnayna inaan insha Allah garab idinku siino waxaan rabnaa marka inaad si laba jibaartaan shaqadan inaysan noqonin wax joogto ah inay noqoto aysan noqonin wax baaba'san sida hadda xaaladda hadda ee gashay aad ku adkaa markaan ka badino shaqada intaasii way ka sii yaraanaysaa dhibaatada ardaydana waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo inay ka shaqeeyaan horumarka ka socda degmooyinka gobolka Banaadir inay qayb ka noqdaan degmooyinka wacyigelinta inaad u istaagtaan ayaan rabaa aad xaafadihii iyo dhaqan xumada markaas magaalada nadaafad daradeeda dadka ku xadgudbaya wadanka inaad ka wacyigelisaan la shaqeysaan maamulka degmooyinka markaas aad degan tihiin inaan annagoo wada shaqeyno intaasoo arday oo degmo walba degmo ka yimid degmadiisa hadduu ka wacyigeliyo dhibaatada ama nadaafad darrada magaalada way ka yaraanaysaa waxaan rabaa inaan isku wada kaashano waxaan rabaa inaan isku garab siino waxaan rabaa wax walba wanaag ahna inaad u horseedaan maadaama u wixii dalka aad tihiin maadaama 75% aad dhalinyaro tihiin
inaad noqotaan kuwa dadaala dadaalkiina waa u jeedaa dadaalkiina wax badan ayaa magaalada ka muuqda iftiinka baxaayo waxaa iskala ammaantiisa dhalinyarada Soomaaliyeed aadaan idinkaga mahadcelinaa wanaaga horumarka waxaa wadiin oo wanaag ah inaa ka sii laba jibaartaan waa mahadsantiin gudoomiye aadaan kaaga mahadcelinaa shaqada culus ah haysto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم maanta waa u jeedin hawsha nadaafadda ee ka socota kambaskan oo ah kambaska xarunta jaamacadduna ay ku taalo laakiin ay degan yihiin ardayda wax ka barata kulliyadda waxbarashada iyo cilmiga bulshada marka hawshan aad u jeedin maantayto waxaa horseed u ah soo abaabulay kulliyadda waxbarashada iyo arrimaha bulshada iyo guddiyada ardayda naadiga ardayda jaamacadda ummadda ayaa soo abaabulay hawshan waxaa hawshan hay'ad u jeedina waa muxuu ahaa ardadaas iyo macallimiinta iyo maamulka kulliyadda iyo guddiyada ardayda jaamacadda ummadda marka waa u jeedina inay hawl nadaafada ay ka wadaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka kulliyadda macallimiinta ardayda kulliyadda waxbarashada iyo culumta arrimaha bulshada shanta maaj ah olole naafadeed oo ka socda xarunta jaamacadda ummadda qaybta Xamarweyne barnaamijkan waxaa soo abaabulay ardada dhigata xaruntan oo kulliyadda waxbarashada iyo social work ah waxaan u mahadcelinaa dhammaan ardadii barnaamijkan soo abaabushay macallimiintooda iyo guud ahaan cid walba nagu gacan siiday waxaan kale u mahadcelinaa gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha kulliyadda waxbarashada Cabdikariin oo sanad tiimkii barnaamijkan soo abaabula ahaa iyo ardada social work guud ahaan oo mahadcelinaa waxaan sidoo kale u mahadcelinaa gobolka Banaadir oo naga gacan siiyay barnaamijkan inay wax badan naga taageeraan qalabka ku baxay iyo sidoo kale agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada Xamarweyne oo asagana sidoo kale aad nooga gacan siiyay dhammaan cidii naga wada gacan siiyay aad uga mahadcelinaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaa agaasimaha arrimaha bulshada ee jaamacadda asna naga gacan siiyay barnaamijkan sida ogsoontihiin diinta islaamka ayaa nagu boorinaysa inaan nadaafadda guud ahaan bilicda inaan ka shaqeyno deegaanka an-nadaafatu nisfu al-iimaan oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waxaan bulshada Soomaaliyeed dhamaantood aan ku dhiirigelinaa aan ku boorinaa nadaafadda inay ka shaqeeyaan oo cid waliba ay meesha joogto ka bilowdo Soomaalidu waxay tiraahdaa gacan dhaqana wax dhaaqda markan beedkeena iyo gurigeena iyo goobaheena waxbarashada aan hagaajino ayaan guud ahaan hagaajin karnaa qaybaha kala duwan marka nadaafadda guud ahaan waxay ka socotay xarunta qaybaheeda kala duwan ilaa maktabadda laga gaaro qaranka dhammaan ereyadaas oo dhan ay ka socotay nadaafadda ay u mahadcelinaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay u fariisatay eedeymo loo haysto dhigarqabe ka tirsan kooxda Daesh wariyahana Cabdiqaadir Ciise ayaa warbixin la xiriirta amuurtaasi inoo haya maxamed cali maxamed faarax oo magaciisa afgarashadu yahay Abu Hurayra ay maxkamadda weydiinaysaa dilka Allaha u naxariistay ex kormeere saddexaad Maxamuud Cabdi Dhuxulow oo ahaa kaaba marqaatigii u qaabilsanaa suuqa Siinaa ilaalada deegaanka Xamar taariikhdu markay ahayd 5 Agoosto 2019 iyo kamid ahaanshiyihiisa maleeshiyada argagixisada ah ee dhuumaaleysiga ku ah buuraha bariga Soomaaliya ee Daesh waxaa lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda Daesh oo aad kaga biirta buuraleyda Goolis ee magaalada Boosaaso gobolka Bari adigoo qayb ka ahaa jabhadda Daesh ee ka dagaalanta Miraale kadibna kooxda Daesh ay ku bedeleen qayb dilalka qorshaysan ka fulisa magaalada Muqdisho wajiga labaad ee fadhigan ayaa loo balansanaa dhageysiga marqaatiyaasha ku xusan eedda maxamed cali maxamed xafiiska xeer ilaalinta oo dib u dhigista dacwadda kor hore weydiistay garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa la yimid 3 marag oo iyaga ku qornaa ilaalinta bar control oo ku taala degmada warta nabadda ee suuqa Siinaa iyo baarihii kiiska ilaaliyayaasha shacabka ayaa iyaga oo ka jawaabaya dilka marxuumka durbadiiba ka helay shacabka xogta dhaqaaqa labada eedeysane ee midibaxsadka yahay oo ah in ay isku qariyeen luuqa sidaas darteedna ay isku qaybiyeen inaan wada socon laakiin booliiska iyaga oo ka jawaabaya hagida shacabka ayay weydiiyeen eedeysanaha inuu isku dhiibo si nabadgelyo ah balse isku day kale oo fashilmay ayaa ahayd inuu ciidamadii weeraray sidaasna ay ugu geysteen dhaawac naafeen ah si loo mariyay habraaca sharciga ah gaashaanle muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa u sharaxaya maxkamadda natiijada baarista eedda ka dhanka ah maxamed cali maxamed faarax
asgarigaas wuxuu qabtay shaqo tii ugu wanaagsaneed ee laga rabay inuu sameeyo asgari booliisa markii ugu horeysay inuusan ka cararin ayuu xabad uga dhiftay lugta intaas kuma uusan jilcin eedeysanahay wuxuu isku dayay inuu sii dagaalamo oo iska celiyo asgariga markii labaad si uusan naftiisa u dhibaatayn xogta iyo macluumaadka uu isaga hayo eedeysanahayna uusan ula dhiman wuxuu xabad labaad uga dhiftay gacanta sidaas ayuu bustooladii uga qaaday xorriyaddan uga qaaday kuna suurto gashay in eedeysanuhu gacanta lagu dhigo mudana gudoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh eedeysanaha waxaa lagu qabtay goobtii oo falka ku geystay eedeysanaha waxaa lagu qabtay asoo gacanta ku haysta qalabkii falka uu ku geystay xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal cabdulaahi buule kemi ayaa maxkamadda u sheegay in eedeysanaha uu ka caashaqay daadinta dhiigga xiriirka baraha bulshada gaar ahaan telegramka sidaas darteedna uusan mudnayn in loo naxariisto khadadka oo bal bulshadu ku xiriirto wuxuu geli jiray mar walba meesha daacish ay leedahay wuxuu fiirsan jiray qaabkeeda sidaasuu ku jeclaaday ma ahayn shakhsi caadiya oo aan aqoon badan lahayn ama jaahil ah oo la khalday oo qof ku tashkiiliyey wuxuu yidhi sida uu garsoor ka hor qirtay isagaa ku qancay dhiigga ay daadinayaan daacish iyo qaabka ay wax u dilaan oo wax fiican la noqday sidaasuu iskiis ugu go'aansaday inuu ka mid noqdo daacish geesinimadii uu ka helay